السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نقصن داود كسو دوادا channel يوتيوب ka أصلح بسافي maanta waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. Qisadaas oo ah gabar oo uuriyay daanyeer sida ku dhacday filimka ilaa iyo dhamaadka fiirsada adinka ayaa dib u ogaa doontaan. Haddaba aan bilowno qisada. Gabadhan waxay ku nooleed magaalo oo la yiraahdo Jandarbuur. Gabadhan kaligeed ayay nooleed. waxay lahayd beer oo weyn oo beertaasna ka baxayo canab. beertaasna waxay ka dhaxashay aabbaheeda. gabadhan saaxiib ma lahayn, qof dhan ma lahayn, gurigeed qof ma u imaan jirin. subaxdii markii ay soo kacdo beeraha ayay aadi jirtay, canabkeeda ayay soo guran jirtay, waxay geeyi jirtay suuqa waa soo gedi jirtay. maalin maalmaha ka mid ah iyadoo oo beerteeda canabkeeda ay guranayso waxaa uu imaaday daanyeer. kadib iyadani ma cabsanin. daanyeerkii waxay u dhahday halkan maxaa ku keenay ee iga bax beertayda. daanyeerkii waa cabsaday, gadaal ayuu u durqay. kadib waxay dhahday iga bax, ul ayay u soo qaadatay. daanyeertii waa baxay. haddani maalintii labaad daanyeerkii waa soo noqday. haddani gabadhii waxay u dhahday war halkan maxaa ku keenay ee iga tag. markaan daanyeerkii ma bixin, waa joogay. daanyeerkii ma cabsanin, gabadhiini ma cabsanin. kadib daanyeertii xogaho waa iska durqay. haddana maalintii saddexaad daanyeerkii waa imaaday. kadib maalintii saddexaad daanyeerkii iyo gabadhii waxay noqdeen saaxiib. labadooda way isla cayaareen, yacnii dhexdooda wax oo dhib ahna ma marin. kadib gabadhii waxay dhahday daanyeerow aniga gurigeeda ayaan aadaa, macsalaama. way soo baxday. kadib waxaa imaaday roob oo aad iyo aad u daran. daanyeerkii beertii kama bixin, wuxuu joogay beerta dhexdiisa. kadib gabadhii waxaa galay naxariis. daanyeerkii waxaasu dhahay ee halkan maxaad u joogtaa ee soo bax, gurigayga aan ku geeyo. gurigayga keligayga ayaan ku noolahay, qof ma ila degano. daanyeertii way soo wadday, gurigii ayay keentay. daanyeerta gudi uma soo geli jirin ee bannaanka ayaa istaagi jiray. weligiisa gudi ma soo gelin. habeennimada oo ka mid ah waxay imaaday xanfar oo aad iyo aad u daran oo qaboob ah. daanyeerkii bannaanka waa joogi waayey, gudi ayaa soo galay. gabadhiinni hurdi oo macaan ah ayay hurday. markii gabadhii ay hurday kadib daanyeerkii gudi ayaa soo galay. sariirta ayaas ugu soo koray, gacantiisa ayaa madaxa ugu salaaxay. kadib ninka iyo naagta wixii dhex maro ayaa daanyeerkii iyo gabadhii ay dhex mareen. gabadhiinni kama war hayso daanyeerkan inuu oo yacnii gabarnimaanteeda isku dheelay camal, inuu oo la baashaalay. gabadhii way jiiftaa, laakiin daanyeertii dantiisa ayaa gaaray. gabadhii waa u tagay, waa la kulmay. markii subaxdii la soo kacay gabadhii xogaho si kale ayay dareentay, wax kama dhiganin. wakhtiga waa socday, labadooda waa saaxiibtoomneen, saaxiib ayay noqdeen. xataa beerta waxay ku caawin jirtay gabadha daanyeerka. daanyeerka canabka waa u soo gooyi jiray, suuqa waa u raaci jiray, waa caawini jiray. 1 bil waa la mooday, 2 bil waa la mooday, 3 bil
afar bil kadib gabadhii waxay dareentay mantag isi kale doktoorka ayaa guriga ugu imaaday doktoorkii ay wacday waxay dhahday doktoor aniga ma isfahmooyi ee wixii igu dhacayni ma sheegi kari kadib doktoorkii waa visitaareeyey waa fiiriyey kadib doktoorkii wuxuu u dhahay gabadhaydiyey adiga uur baad leedahay gabadhii way naxday waxay dhahday doktoore adiga ma igu cayaaroosaa mase runtaadii waaye uuraad leedahay maxaa waaye aniga saaxib ma qabi rag iska dhaafee dumar oo saaxib xataa ma qabi guriga qof ii imaado ma lahan weligayga far layma saarin uurka inteeska imaanaa doktoorka wuxuu dhahay uurka meeshii adiga aad ka keentay adigaa ogey gabadhaydii laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa inaa uur ad leedahay doktoorkii waa baxay gabadhii keligeeda ayaa isla sheekaysanaysaa aniga yaa ii uureeyi aniga saaxiib ma qabi wax aan qabo male daanyeerkiina waa joogaa hadalka dhan waa maqlooyaa falkan daanyeerka asaga inaas ka dambeeyey waa ogyahay laakiin ma hadlooyo daanyeerkii waa ooyi gabadhii way oosay gabadhii caloosheeda waa soo weynaaday markii suuqa ay aaday dadkii waa ugu sheekaysanaayeen tuulada dhan waxay dhihi jireen gabadhii oo maanta fiicneed oo canabka nooga keeni jirtay oo canabka nooga gedi jirtay uur ayay qaaday uur oo kisi ah kadib wakhti kadib waxaa imaaday nin oo sheekh ah kadib wuxuu u dhahay gabadhaydiyey i dhegayso adiga guriga yaa kula deggan qof kula deggan male laakiin daanyeer ayaa kula deggan uurkan waxaa laga yaabaa daanyeerkan nasku uureeyey gabadhaydii way naxday gabadhii ka bacdi oo adiga oo aad ogeen ayaa daanyeerkan ku uureeyey waa dhacdaa sheekadan nin oo wuxuu ahaa tuulada oo yacnii nin oo wuxuu ahaa oo sheekh ah oo yacnii cilmi oo askasaayo kadib waa dhacdaa gabadhaydii dad badan waxaa jiraa oo bini'aadan ah oo la sixray oo daanyeer isku beddeleen oo laakiin bini'aadannimo ay u isticmaalayaan kadib gabadhii way oosay markii gabadhii oo bannaanka ay baxday daanyeerkii ay fiirisay daanyeerkiiba ma joogo daanyeerkii waxaa isku beddelay wiil oo quraxloo oo dhallinyaro ah daanyeerkiiba waxaas naqday wiil ka bacdi wiilkii gabadhii waxaasu dhahay aniga ayaan ku uureeyey laakiin aniga waa li sixray daanyeer aa laygu dhigay daanyeer ma ahayn qof bini'aadan ayaan ahay habeenkaasni damac ayaa i qaaday adigoo jiiftid markaan ku arkay waan kula kulmay kadib sheekhii ayaa loo tagay arrintii waa loo sheegay markaas sheekh waxaas dhahay labadiinna inaa oo laisku guuriyo waaye labadooda kadib waa laisku guuriyey dadkii oo magaalada oo maanta oo warka xun ay wadeen warkii waxaa loo beddelay war fiican kadib labadooda waa laisku nikaaxay owlaad ayaa ilaahay siiyey owlaad oo igaar ayay dhashay oo naturaal ah oo daanyeer aan ahayn ibni aadan igaar oo caadi ah ayay dhashay marka walaalahayga sheekada oo daanyeerka halkaas ayaa noogu dhammaaday ee weligaaga xoolo lama soo dhawaysto xoolo waxay og yihiin ma lahan xataa way dhacdaa arrintan daanyeer oo dad uureeyey waa jiraan daanyeerka qof bini'aadan oo la beddelaya caman waaye marka qisada halkaas ayaa noogu dhammaaday qisadaani waxaa lagu soo turjumay stuudiyo saafi oo ku yaalla dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada bacda waxaan idin soo turjumay walaalkiina aslax aba saafi